shanta Ramadaan maanta oo kale 1367 Hijriga oo ku aadanayd 11 Julaay 1948 ciidanka kumaandoosta Yuhuudda ee loo yaqaano Al-Balmaax uu hogaaminayay Moshe Dayan waxay geysteen xasuuq midkii ugu darnaa xasuuqaas oo noociisa oo kale hore uga dhicin magaalada Al-Lid ee ku taala dalka Falastiin. Howlgalkaas Yuhuuddu waxay u baxsatay magaca Dani ayagoo raacaya amar ka soo baxay Yigal Allon. Ugu horeyn magaalada waxaa lagu duqeeyay madaafiic iyo hub culus. Kadib waxaa bilowday inay Sahiyuuniyiintii soo qaadaan weerar ay ku soo galeen dhexbartanka magaalada, taas oo keentay inay dib u gurtaan kacdoonkii Falastiiniyiinta ee kasoo horjeeday Yuhuudda. Waxaa isku soo haray dadkii magaalada degnaa oo isku xilqaamay inay isdifaacaan. Waxay dhufays ahaan u galeen masjidka Dahmash. Waxaa la sheegay ilaa 60 qof inay Israa'iil ka dileen. Intaas kadib Israa'iil waxay si buuxda u soo galeen magaalada ayagoo saaran baabuur saf ku socota. Waxay amar ku soo qaateen inay dilaan wax walba oo dhaqaaqa: hooyo, gabar, ilmo yar, wiil, waayeel, xoolo aan kala sooc lahayn. Intaas kuma ekeyn, dadkii waxay u ammaan doonteen masaajidada. Way uga daba tageen masjidka Dahmash kaliya waxaa lagu dilay 176 qof. Edward Danus oo ka mid ah ilmihii dadkii lagu xasuuqay dhacdadaas wuxuu dhahay, dadkii magaalada Al-Lid deganaa waxaa ka soo haray 1,030 qof oo kaliya. Waxaa kaloo la sheegaa dhiiggii dadkii lagu xasuuqay magaalada inuu dhudhun in la eg dhulka ka sareeyay sidii roob waqti barwaaqo ah da'ay oo kale. Intii soo hartay waxaa lagu amray inay magaalada ka baxaan, qofkii lagu dhex arkana la dili doono. Waxaa loo xadiday wadada ay uga bixi lahaayeen magaalada. Intaysan ka bixin waxaa laga reebtay wax allaale wixii ay wateen: dahab, lacag, ari, jijin, saacad, biyo, cunno. Waxaa lagu dhahay wax walba oo magaalada aad ka soo qaadeen annaga ayaa iska leh ee dhiga. Sidaas ayay ku soo baxeen ayagoo argagaxsan, aanan kala aqoon meel ay u socdaan iyo meel kale. Qaar ka mid ah wadada ayaa lagu duqeeyay. Wixii badbaaday waxay u dhinteen oon iyo haraad. Intuu Ilaahay nolol u qoray waxay soo galeen dalka Urdun. Xasuuqaas ba'an way yar tahay inta la soo hadal qaado, laakiin waxaa hubaal ah in Falastiin ay ka xoroobi doonto cadawga. Waxaan haystaa furihii gurigayga, mana hilmaami doono dhacdadaas. Waxaa ku dhawaaqay dadkii xasuuqa ka soo haray qaar ka mid ah.